wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud maamulka gobolka iyo degmada Wajaale iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta waxay si wada jir u dhagax dhigeen kawaan casri ah oo loo dhisayo magaalada Wajaale kaasi oo dadka shacabka ah ee magaalada Wajaale ay baahi weyn u qabeen kawaankan maanta loo dhagax dhigay maanta waxa noo farxad hadaan nahay maamulkii Wajaale maanta waxaan dhagax dhiganaa kawaankii casriya oo bulshada ku dhaqan degmada Wajaale in badan tabaysay farxad ba ay noo tahay hadaan nahay maamulkii Wajaale waxaana farxad noo maanta oo halkan aynu iskugu nimidnay inaanu dhagax dhigno oo wafdigu yimid la dhagax dhigo kawaankii degmada Wajaale yeelanaysa casriga ahaa oo muddo badan aan sugaynay dadka ka manfaacatan doonana waxa la iyagana insha Allah kulli waad ka raysan doontaan baan leeyahay bulshada Wajaale meeshii aad ku jirteen ayda goor walba ay neefka aad wadaan idinka boobaysay halkan aad kaga raysan doontaan hadii Allah yiraahdo anigoo ku hadlaya afka shirkadda Madiina Construction Company oo ku guuleysatay 4 mashruuc oo ay laba Wajaale yihiin oo kalimakan taagan oo kawaanka xoolaha uu ka mid yahay gebilay oo maartay isagana ka sameyn doono meel isla tira oo maartay halka xoolaha lagu gowraco iyo kala bayd oo isagana laga sameyn doono meel caanaha lagu iibiyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqay wax fiican baan insha Allah taala qaban doona wax fara badan waddanka ka soo qabanay runaantii mashruucani mashruuc aad u balaaran buu ahaa oo in muddo socday hawlihiisana la soo dhiriyay maantana ilaahay aynu ugu xamdinaqayna inuu inoo hirgalo kulay waxa dantan guud la qabanayaa waa wax u haraya bulshada reer Wajaale ma ahan kawaanadii aynu hore u naqaanay waa kawaan standardkii caalamiga ah leh oo nadiif ah runtii wuxuu noqon doonaa degmada Wajaale horumar ballaaran oo runtii ay kaga raysan doonto maxay ahayd kawaankii hore maadaama uu yahay kawaankani kawaan casri ah runtii wasaaradda howlaha guud dhulka guryeyntu waxay xil saaran tahay mar kasta ilaalinta tayada dhismayaasha dawladda ama hayna caawiyaan maxay ahayd hay'aduhu ama laga maalgeliyo mashaariicda dawladda marka hore waxa weeyaan waxaan fulinaynaa hawlihii qaranka dhismahan casriga ah ee Wajaale maanta laga dhisi doono kawaankan maanta halkan laga fulin doono alxamdulillah ilaahay baa inoo suurta galiyay wuxuu noqon doonaa run ahaantii dadku si khalad ah wax u fahmaan kawaan casri ah oo wax ku daafadii xashiish midaan Wajaale ku soo kordhin doonin maxaa la yiraahdaa wax tuubooyin dhulka mari doona oo si casri ah loo dhisi doono anaga ka xanaano xoolahan aniga ku hadlayo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga afkeeda dhismahan waxa ka mas'uul noqon doonta inta uu socdo amba uu dhamaanayo ay noqonayso in halkan lagu wareejiyo waxa ka mas'uul noqon doonta wasaaradda howlaha guud oo isla markaana ah systemkii dawladda u qaabilsanaa dhulka iyo dhismayaashaba injineerada howlaha guud ayaa meeshan design gareyn doona iyagana ka mas'uul noqon doona wasaaradda howlaha guud sababta meesha looga dhisay wax weyn baahi keentay waan ogeeyay maabrigii xilligii campaignkii uu socday doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Muuse Biixi reer Wajaale ka cabanayay sawir balan qaaday kawaanka ay u dhisi doono marka balan qaadkii madaxweyne muu loobin sidii uu ruudka ugu soo jiray rasooyinka ma kala sarsareeyay rasadiina maanta la gaadhay Wajaale idinkuna kawaanka ay ku heleyseen wax la iska dhagax dhigayana ma aha shirkadda qandaraaska qaadatay way joogtaa isla gelinka dambe maanta bilaabay sidii la yiraahdo oo maanta cabirka laga dhisiyo kawaankan waxa weeye 20 mitir inta maanta la sii bilaabay la dhisaya waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin warka warbaahinta SBC Wajaale.